way marka u nimaano arinta Kenya iyo dalkeena Soomaaliya waxay sugaysaa go'aanka maxkamadda cadaaladda dunida la xiriirta muranka dawladda Kenya ee gelisay badeena waxaana soo baxaya warar tilmaamaya in Qatar ay dadaal ku bixinayso in ay abuurto fursad ay kheyraad ku wadaagayaan kheyraadka waliba badda ay ku wadaagayaan labada dal arintaasi maxaa ka jira arinta qaybta hore oo ah in maxkamaddu ay gaari doonto go'aan waa sida aad u sheegtay go'aankaas ayaan sugaynaa biidnillaahi kariim waxaan ku rajaweynahay go'aankaas inuu noqdo mid sida aan filayno Soomaaliya siiya guusha Soomaaliya haddii ay guusha hesho Soomaaliya markaas ayadaa waxeeda leh ciddii la wadaagayso ciddii maaragtaa ay ka shaqaalaysiinayso ayadaa markaa howl u taala ay tahay xukuumadda iyo maaragtaa dawladda Soomaaliyeed oo markaas joogta go'aanadaas ayaa u yaala waa jirtay in Qatar ergey ka socda uu yimid oo uu ka maaragtay shaqaynayay raadinayay sidii labada dal ay maaragtay u soo ceshan lahaayeen xiriirkooda waxay ahayd fariin amiirka dalka Qatar uu soo diray anaga kaliina nooma uu soo dirin Kenyana waa loo diray Soomaaliya iyo Kenyaba arintaas waa ka jawaabeen waana ogolaadeen in xiriirkaas diblomaasi la soo celiyo horaan waxaan u eray Soomaaliya iyo Kenya weligood waxay ahaan doonaan daris laakiin weligood col ma ahaan karaan kolleyba marka ay ku habboon tahay iyo sida ay ugu habboon tahay xiriirku wuxuu ku noqon doonaa meeshiisii loogu talagalay laakiin waa in loo maraa jidka iyo tallaabooyinka la qaadaa loo baahan yahay lagu gaarayo horumarkaas taasoo ku salaysan mubaadi'dii aan ka hadlay oo ah Soomaaliya waxa ay siyaasadeeda arrimaha dibadda ku salaysantay waayahay arintaas ka dhawaajisay waanta ama xalka lagu goobayo khilaafka dalkeena kala dhaxeeya Kenya hadda halkeeba ku dambeeya waxaan ognahay in halkaas markuu bilowday ay soo baxeen caqabado kala gaar ahaan Kenya oo joojisay diyaaradihii dalka naga imaanaya dalkooda ka soo tagay ama kuwa dalka naga ka tagay oo xaga tagay hadda ma jira wax dadaal hoos socdo oo labada dal arintooda xal looga gaarayo dadaallo waa jiraan waana lagu guda jiraa sidaas daraadeed horumarka la sameeyo iyo marka qaarkood dib u dhaca haddii mar walbaba laga sii hadlo uma noqon karto wax u fiican soo celinta xiriirka marka taas waxaan jeclahay inaan sidaas uga haro laakiin ku xaqiijiyo in dadaaladaas ay socdaan in muddo ahna socdeen wax walbana aysan ahayn waxa sida warka ugu jira ay run u wada yihiin ama been u wada yihiin